السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان تيمكا aad baan idin salaamayaa waxaan rajeynayaa inaad wacantiin bidnir karim dhamaantiin waxaan maanta isugu nimidna kulankan in aynu ku sheer garayno ama ku wadaajino mawduucii cusbaa ee ahaa MDC marketplace-ka oo la daahfuray amaba laga qaaday maaragtay shaaca laga qaaday bishan May kowdeedii oo hadda dhowr cish kasoo wareegeen qaybta Englishka ay soo tibinayeen CEO-yadeena Joshi Chinisweigel oo lagu soo bandhigayo waxyaalo badan oo kala duwan in badan baa laga hadlaya MDC marketplace marka maanta inaguna Soomaali ayaynu ku sameynaynaa haddii Ilaahay qadaro waxaan inala wadaagayaan la share garin doona screen-kayga si aad u aragtaan muxuu yahay MDC marketplace qaabkeebu u shaqayn doonaa waxyaalaha iman doona oo dhan waxaas oo dhan si aad u aragtiin insha Allah screen-kayga la wadaagayaa waxaan filayaa screen-kayga waa la wada jeedaa si fiican baad u arkaysaan horta waxa jira walaalo badan oo iska cusub oo waxa laga yaabaa tiimka ku cusub marka MDC wax yaraan ka siiyo macluumaad ah si aad u fahamtaan MDC waxa loo soo gaabiyay My Daily Choice kamanigeena weeyaan Mareykanka laga leeyahay oo ilaa 2014 shaqeynaya oo jiray maasha Allah tabarakallah markii hore MDC wuxuu ahaa the house of brands ayaa la oran jiray wax kalena maahay aan waxaan jiray dukaan waxa weeyaan wax walba haye waxa uu lahaa MDC oo uu suurta geliyay 10 brand in uu suuqa soo geliyo laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda waa almost muddo 10 years u buuxsamaya 10 kaasna waxay launch gareeyeen 8 brand oo physical products waxaan u taqaanaa ma ashyaada la taaban karo ama la cuni karo la isticmaali karo iyo 2 digital ah ay launch gareeyeen marka tani business opportunity maaha laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka siiyo walaalaheena cusub ee tiimka ku cusub insha Allah waxay daawan doonaan ama si faahfaahsan ugu dirgi doonaan cajaladaha kale recordinada kale ee ka sameynay presentationada loogu talagalay ganacsiga MDC marketplace markii la aasaasayay kambanigeenani in badan ayuu ku horgalay waxa uu isku dayay sidii uu u sameyn lahaa wax ayagana faa'iido ugu jirto dadka kale faa'iido ugu jirto marka wixii eegeen waxa soo noqnoqday marka hadalka oranaya oo iska ka wada hadleen riyaasha company-gu maadaama aynu nahay company intaas soo jiro intaas brand aynu inagu leenahay sidee baynu u suurta gelinaa oo suuq ugu sameynaa company-yada kale CEO-yadu markay ka hadlayeen waxa ay carabaabeen oo sheegeen in ay jireen maalin walba dad xafiiska imanayay xafiiskeena ku yaala head office-keena ku yaala Las Vegas imanayay oo la hadlayay CEO-yada iyo leadership teamka iyo corporate teamka oo ka codsanayay inay ka mid noqdaan laakiin mar walba ay dib u celinayeen because MLM industry aynu naqaano waxa ka jira competition ama tartan baa ka jira markay arkeen marka waxay leedeen why not tartanka u ogolaan weyne challenge ku fiican yahay waxyaalaha ku maaragtay naftaada challenge ku sameeyay u fiican inaad sameyso marka taas la ajligeed bay u daahfureen barnaamijkan marketplace MDC marketplace oo aynu maanta ka hadlayno sidoo u shaqeynayo waxaas oo dhan insha Allah hadaynu isla eegayna inta aynaan guda gelin MDC marketplace ama My Daily Choice marketplace sidoo u shaqeyn doono cid ku soo biiri doonta waxa uu faa'iido inaga inoo leeyahay wax yar oo waxaan rabnaa inaan ka hadallo xaqiiqada jirta hadda waqti xaadirkan aynu ku sugannahay sanadkan 2023ga xaqiiqada jirta waxa weeyaan Soomaalidu waxay oran jirtay biyo meel godan bay isugu tagaan ay oran jirtay wax kale maaha ee waxa weeyaan adduunka online bay isugu tagay hadda pandemic sidoo u bilaabmay qof kasta gurigiisa isagoo jooga in uu adeegto ayuu rabaa tusaale ana idinku filan Walmart isagoo dariskayga ah oo xitaa u lugeyn kara ayaan sometimes online wax ka dalbadaa can you believe that for some reason because wixii albaabkayga la igu soo deliver gareynaya Walmart inta dhex wareegi lahaa ana computerkayga fadhiyo dhex wareegaysta website-ka la ii qaatay heerkaas la gaaray waxyaalo badan baana sababay pandemic waxa kamid ahaado noloshii mashquul noqotay ka mid noqotay anyway marka la eego hadda la qiimeeyo casrigan aynu ku noolahay wax kasta waxaan ama telefoonkaaga ama tabletkaaga in aad ka dalbatid waxa la eegay sanadkan waxyaalo sameeyaa jira oo ay sameeyeen dadka maarka suuqa u horgala sanadkan 2023 ku jirno 20% oo retail purchase kaasan idin sheegay wuxuu noqday online buu noqday by 2026 adduunka dhani waxa qaar badan isku bedeli doona almost 24%
4% baa ku biiraya in ay waxoodii online ka dhigaan marka haddii la eego statistics-ka marka la eego la qiimeeyo wax kasta adduunkii online bay u socdaan meesha gudan bay isugu tegayaan technology-gii baana fududaysay marka taasaynu qayb ka nahay in aynu ka faa'iidaysano oo aynu fahanno qaabka u shaqayso aynu markaa maaragtay meel marino intaa bedelino my daily choice-na taas inoo fududeeyey maasha Allah tabarakallah haddaba marketplace-kan MDC soo kordhisay muxuu noqonayaa maanta waxa uu noqonayaa waxa halka idinka muuqata website ba idinka muuqda geeskan MDC page-koodu markii hore technology-ga ay haystaan wax kasta waxa wax aad aanan oran jiray waa very fancy moqtay oo aad looga shaqeeyay technology-ga ay iska leeyihiin CEO-yadeenu oo Josh lacag badan geliyay in ay u fududeeyaan dadka website-ka isticmaalay fariiso uga dhigaan sidii ay ugu adeeganayaan oo kala maaragtay wixii aan ugu dhex dawsan website-kiyo ay so many things noo sameeyeen oo aan hadda ka sheekeyn karin xag technology-ga marka la eego tiiba markaa waxay noqonaysaa waa la ballaadhinaya intanay ahayd waa la ballaadhinaya expansion baa lagu sameeyey maadaama uu wixii marketplace noqonayo sida aynu naqaano Amazon hadda markaad ka adeeganayso oo kale haddaad Amazon dhex gasho oo doonayso inaad iibsato let's say phone-kaaga telefoonkaaga kiiskiisa oo kale phone-kan haddaad doonayso inaad ka iibsato kiiskiisa oo kale intaas oo brand baa kuu soo baxaaya oo kala gegedisan Amazon ma kala jeclo ka aad iibsato marketplace-ka waxa weyn macnihiisu wixii in qof kasta loo ogolaado oo no discrimination baa loo jiray soo aan ay jirin wax la kala jecel yahay so my daily choice taas oo fududeeyay in marka aad soo gasho website-kii qof kasta uu adeeganayo customers-kaaga adeeganayaan haddii ay spray ku arkaan tea makeup-ka ah oo kamanigu iska leeyahay ama tu kale oo aanu lahayn labadaba isku si loo iibsan karo taasay fududeeyeen sidii Amazon oo kale maasha Allah tabarakallah marka website-kani sidaas uu noqonayaa wali lama dahfurin wala dahfuray insha Allah xaq dambe ku share gareyn doona marka hadda marka aad eegto xaqiiqatan run ahaan company MLM ama network marketing suuq aan u naqaano industry-gan aan u naqaano kamid ah oo wali marketplace sameeyay ma jiro my daily choice ayaa ugu horeysa maxay taasi ku tusinaysaa talaabada uu maanta qaaday in ay ku soo dhiiran doonaan bulshooyinkan MLM-ka ku jirta oo platform-ka ama meesha uu siiyay masrax dhan buu siiyay ay isugu soo ururi doonaan taasi maxay ku sii tusinaysaa oo kale mustaqbalka dadka affiliate-ka ah ee sideena oo kale ka ganacsada ganacsigan MDC programkan affiliate-ka ku jira in ay u soo xaroon doonaan intaas oo brand oo kala duwan oo ay lacag sameeyaan oo aanad ku koobnaan doonin 10kii brand ee MDC ee intaas oo kale ay ku soo jiraan wadada marka inagoo wax walba haye ahayn marka hore in ay soo siyaado waxayniiba wax leynoogu siyaadiyay waa nimca ku ma ogtahay marka saas u shaqeynaya MDC marketplace insha Allah haddii aynu wax yar isla eegno qaabka uu noqon doono marka website marka aad furtid waxyaalaha ay ku yar kala gedisnaan doonaan MDC ama my daily choice alaabadii ay marka hore iska lahaayeen ee ay samaysteen lacagta ku bixiyeen ayagu hoosta ka soo bilaabeen iyo brand partners-ka soo join garayn doona ama shuraakada la noqon doona ee la siiyay meeshan ay wax ku iibsanayaan farqigaas u dhaxaynaya MDC alaabadoodii waxa loo bixiyay prefer brands because ayaga lacagta ka baxsaday ayaga samaystay ayaga waxaan ku labelka u sameeyay xayisiiska u sameeyay wax walba u sameeyay hadduu $1 ku baxay hadduu $1,000,000 ku baxay ayaga ka mas'uul ah waana kuwa halka idinka muuqda xagga dambe aan ku arki doonaa insha Allah bidal cream 10ka brand ba ayaga iska xaq u leh marka that's why loyalty prefer brands haddaba marka inagu affiliate aynu iibinayna alaabadan business volume-ka isma bedelayo compensation plan-keena isma bedelayo wax isbedelaya ma jiro farqiga kaliya u dhaxayn doona prefer brands-ka iyo brand partners-ka in la soo shiraakoobay ee la siiyay meesha ay wax ku iibsanayaan wuxuu noqon doonaa xaggi volume-ka dhibcihii ka soo baxayay ashyaada aynu iibinayno wax kasto aynu iibino waynu ognahay business volume baa la socota MLM-ko dhan waa sidaas shay markaad iibsato dhibcaa la socda marka dhibcihii ayaa kala badnaanaya mar walba waxa dhibcahooda ay badnaan doonaan volume-ka ka soo xarooda baraanadeeni hore aynu u naqaanay ee my daily choice ay badnaan doonaan mar walba prefer brand waxaan jeedaa partners-ku afwan way yaraanaysaa maxaa sababay arrintaa because revenue-gii in wax laga siiyo ayay noqonaysaa kambaniyadii iska lahaa xaqa u lahaa because my daily choice may aasaasin alaabtan lacag kumay bixinin
may soo saarin label umay samaynin waxa kaliya taysiyan suuqi ay ku iibsan lahaayeen waa adoo suuq haysta oo albaabkaaga u furay dad kale inay kugula ganacsadaan dukaankaagii marka waa sidii oo kale weeyaan marka muhiimaddu waxa weeyaan in aynu fahanno tan maanta in hortaala arrintan in hortaala dadku markay arkaan si oogana waxyaalaha ay ka digay Josh ay ka mid ahayd maalintii dhawatoole dadku buu yiri laba nooc ay u kala bixi doonaan dad qofku dadku isku meel wax kama arkaan Soomaalidu waxay tiraahdaa tugbadkaagiiba rogmadaa ma ogtahay qofba ilaahay caqliga inuu ka siiyay qofba siduu u fikiraa marka wax lagu sheego edmaankaaga la kaashato qofba isla markaaba wuxuu arkayaa mustaqbalka fog iyo waxaani faa'iidada uu soo wado qofna wuxuu noqonayaa barti yaqaan oo barti uu fadhiyay kama kacayo wuxuu oranayaa oh no this is too much ay oranayaa ma ogtahay marka wuxuu yiri waxay noqonayaan dadku abundant and scarcity mentality bay yeelan doonaan qof marka wixii arko markaaba maaragtay uu ku dhaca cabsi ama maaragtay dawqaad ama confusion ama something oo u qaata wixii inaan maaragtay dan kala hayn kuwan soo kordhay ee ku dhaga uun bartiiqaanka idin sheegay ku yaqaan oo yiraahdo anigu kanaan haystaa toban brand baan haystay waniga badiyay kuwaasaan wada in xaysiinaya qof saasa oo inta uu yaqaan uu ku dhaganaada oo waxa kala danka gelin iyo qof yiraahdo ma aniga ha oo maanta haba la ii badiyay waxa wax lagu darweeyno dhinac kasta ka urursada wixii uu helayo oo aan dan ka gelin BV-ga yar iyo waxaas waxa weeyaan muhiimaddu in ay intaas oo kaliya ta fahano tiimamkeenana fahansiino qof kasta oo brand partnerska ka faa'iideysanaya in qaabka uga faa'iideysana dariiqii la tuso wax farqi uma dhaxeeyaan wixii aad sameyn jirtay haddii la fikro la eego bilaadanku ma kala soo fikra oo qofna wax ku dhigaa qofna maaragtay hawshiisa wataa haddii la fikro la eego faa'iidada badan waxay qofka soo galaysaa marka labadaba isku darsado maxaa sababay haddaan qalinkan buluug oo kaliya ta dukaankayga oo li jiro oo madowgana igu soo daray dadkii choice bay haystaan kama buluuga jecel buluuga iibsanaya kama madowga rabaana madowga iibsanaya diyaar baan siiyay laakiin marka aan hal wax dadka saa ugu wado wax laga yaabaa inay ka soo daalaan waxyaalaha aan aad ka maaragtay ugu farxay waxa kamid ah in xitaa alaabo aynu haysano oo MDC ay hadda haysato xagga dambe ka sheegi doonaaye ay ogolaadeen ay qaateen oo dadku jecel yihiin maxay eegayaan maxaa socdo maanta la xiiseynaya kana in badan bay ku celceliso waxay tiri annagu mar walba waxaan u faa'iideynaynaa bulshada oo laba dhinac ah bulshada uun maaha inay alaabtii faa'iido yeelato waa in brandkana soo join garaynayaan ay noqdaan dad ayaga laftigooda faa'iideynaya especially wadamada westernka waxaan ugu nimidnay marka aad maaragtay caagad biyo ka cabto kala recycle gareeba lagu nii halkaagee waxyaalaha recyclingka waxaa ka soo baxa waxa qaar ku sameeyaan donation waxay dhahdaan ama environmentkan ugu donate garaynayna ama maxayga ama organizationkaas aan siinayna dadkiiba wax ugu celinayaan waa socially responsible being companygaas marka waxaan eeganaa bay tiriday hadda waxyaalaha soo noqda ee saas oo kale ah maxay dadka uga faa'iideynayaan iskama qaadanayno oo soo ururiya ma oranayno war company-gana una soo join garaysayo nagu soo darsatay maxaa dadka u faa'iideynaysaa alaabtaadi faa'iido marka hore ma leedahay oo wax anfacaya dadkii ma noqonaysaa adiguna wixii hadhow toole dadkii maxaa dib ugu celinaysaa labadaas isweydiinayaan waxay leeyihiin organization ayagu ay donationka ugu talagaleen ay dhahda maaragtay urur ay sameeyeen Swagly Foundation la yiraahdo ay leeyihiin oo dadka caawiya agoomaha iyo dadka noocaas caawiya ayaa jira marka taasay eegayaan benefitka labada dhinac ku jira marka muhiimaddu inay ka fahano inaguna weeyaan okay marka saas u shaqeynaya prefer brandskeeni oo inagu aynu iska lahayn oo already aynu 1000 SKUs haysano 1000 SKU waxa weeyaan product kasta SKU gaar ah uu leeyahay barcode yar baa ku qoran almost kun baynu ka haysanaa SKU inta soo kordhaysana tira ma yeelan doonto biidnillahi alkariim marka marketku uu ballaadhay waanu ballaadhanaya insha Allah biidnillahi alkariim sababtay waxbaynu ka yara sheegnay waanaynu ku celinaynaa maxaa keenay waxay aad uga hadleen qodobka 6 especially oo noqonaya international marketka ay aad uga hadleen category MDC marka hore way ku socotay oo waxa ahayd dariiq jid ay saarnaayeen ayay ahayd waxyaalo badan way sameeyeen waxa faa'iidooyinka ugu badan uu ka soo galaya waxa weeyaan marka hore leadershipkii in ay bataan
kambanigu haddii uu tiirar badan leeyahay ma liico aqal kasta waxa lagu intaasoo dhidib baa haya ma ogta especially dadkeena hore aqalada dhisan jiray dhig iyo udub baa la oran jiray soo ma aqalba aqalku ka dhiga badan yahay ama ka udub badan yahay ka adkaa waa sidii oo kale markaad tagtid concrete-ka aqalada haya aqalba aqalku concrete fiican yahay ka adag yahay marka tiirarka aynu ku tiirsanaanayno dhidibadeena liidarayaasheena waxay noqonayaan qaar tiro badan maskaxuhu marka iskaashadaan ay bataan waxa weeyaan faa'iidada badata taasi kow kategoriyadaynu soo sheegnay inagoo walba ahayn wax walba haye ahayn inaynu sii kobcinana waa laba ayaduna sayliskeenina way kobcinaysaa laga yaabaa in uu jiri doono shay dadku aad u jecel yihiin oo kala joogsan waaya hadda waynu lahayn ashyaa noocaas MDC waxaa ka mid ah bing drinkiga bahalka loo yaqaano ama aan dhahno extreme out of stock buu noqdaa si isaga jooganba hawada laga waaya isagoo gareeya baad arkaysaa batankii kuuda markaasaa marka la qaraaco sorry waa la soo buuxiyaa warehouse within weeks hadana out of stock iska noqda because waxa weyn waa very popular CBD oil qaar baa saasa brand hemka beyond qaar baa saasa marka waxa weyn muhiimadu in aynu ogaano wixii expansion kii dhacay in ay dhacayso alaabo saalo iibsado oo aan markii dhul u dhacaynin suuqa internationalka haddaynu yaro dul istaagno MDC waxaynu ognahay wadamo badan bay gaadhay warehouse badan bay leedahay Europe warehouse bay ku leedahay Amsterdam oo Europe dhan looga diro Asia waxay ku leedahay warehouse bay ku leedahay xafiisyana way uga furan yihiin especially Taiwan ay raahday xafiis baa uga furan support team baa jooga dadka telefoonka qabto caawiya sida uu support team u jooga Las Vegas Hungary xafiis support team jooga jiro dadka afkoodii kula hadlo oo caawiya warehouse-kuna Amsterdam ka furan yahay alaabta looga diro Europe marka alaabta halka ay ka go'do Las Vegas baa looga soo diraa alaabtooda reer Europe marka Nigeria laftigeeda way ka fureen oo xidhan Africa maadaama expansion lagu sameeynayo xafiis bay ka fureen waxay ka fureen pickup location may Nigeria ka fureen Africa oo dhan dhowr alaabta lagu geeyo wixii product available ka ah marka waxay eegeen waxay maadaama aanu soo kordhinay alaabooyin cusub suuqeeni marka horeba international ka ahaa ee weyna aynu sii balaadhinaynay waxay noqonaysaa inay sii fududaato sidin alaabada ku geeyno waayo baraanadan soo kordhay alaabadan soo kordhay markooda horeba registration bay ku lahaayeen wadamo badan license bay ka haysteen wadamo badan koskamanigani legal wuxuu eegayaa wadankaas alaabtii ma la geyn karaa waxaa dhici karta alaab xitaa laga heli karo wadankeenii oo kale matan la geyn karo inay soo join gareeyaan oo ay dadku license ka haystaan you never know ma ogni ilaa hadda soo far wadanka ugu dhow Soomaaliya waa Nairobi Kenya weeyaan alaabba Kenya la geeyaa fuel factor X ay kamid tahay iyo alaabooyin kale xafiis baa ka furnaa marka xidhay laba xafiis Afrika nooga furnaan maayeen kii Nairobi waa la xidhay 2020 waxa la xidhay 2 bilowgiisii I think or no 2021 ka bilowgiisii baa la xidhan ma leeyahay hadana qaldanayn waxa xidhay Nigeria kaliya deynayna xafiiskii markaan la xiriiray xitaa wiilkii hayay wuxuu ii sheegay in la xidhay xafiiskaas oo ka Nigeria uu hadda furnaanayo so anyway aan ku soo noqdo tobageeni internationalka ahaa maxay fududaysay haddii qalinkani markiisa horeba uu sharciyeysnaa oo la geyn jiray Kenya la geyn jiray ama Uganda ama Ethiopia ama Djibouti whatever ama Soomaaliya la geyn jiray MDC sharciyan cusub ugama baahna license cusub ugama baahna maxay taasi inoo fududaynaysaa in dadkeeni xagga joogay walaalaheena ganacsiga ku jira ay ka faa'iideystaan si fudud ku heli karaan kuna iibin karaan iyaguna ku dalban karaan wali hadda teamkeena Soomaaliya alaaba may gaadhin looma geynin because waxaan ku jirnaa inaanu expansion ku sameyno suuqaas wali jawaab naguma soo celin kambanigi qaybtaa suuqaas sidii u geyn lahaayeen because waa inay legally marka hore sharci ka haystaan wadanka alaabta geynayaan marka taas ayaga way u fududahay hadda so insha Allah waxaan rajaynayaa may sheegin kambaniyada alaabta meelaha ay ka kala imanayso iyo wadamada ay marka hore sharci ka haysteen wali may sheegin waxa aan ku niyad samay insha Allah aan ku duceysanaa ila maanta aan uskareeyeen marketplace-ka daha ka qaadeen ilaahay idinkii in laga helo alaabo wadankeena tagta la geyn karo si fudud si walaalaheena dalkii hooyo jooga uga ganacsadaan dhaqaale uga sameeyaan haddaba iyagoo ganacsan kara oo hadba si loo jaba loo dhutiyay iyagoo wadankii jooga haddana yeelan kara customers iyo affiliates adduunka kala daafiisa jooga insha Allah taasna inay inoo suurta gashin rajeynaa wax kasta waxa weeyaan talaabo baby steps baynu ku soconaa insha Allah marka muhiimadu waxa weeyaan in aynu fahanno mustaqbalkii fogaa markasta aynaan eegin waxa hadda in hor yaalla aynu ka shisho eegno
okay goorma la daaha laga qaadiya la launch gareynaya website-ka in alaabta ku arkayna bishan gudaheeda isniintii markii la sameeyay barnaamijka qaybta Englishka Josh Chene waxay sheegeen in by Friday oo maanta ah ama early next week oo isniinta ka bilaabmi doona lagu arki doono website-ka inuu isbedelay website-ka dad eegtaan maanta wali waa sidiisii saak markaan ku jiro wali waa sidiisii waan eegay waxba iskama bedelin laakiin insha Allah isniinta haddii ilaahay qadaro inuu wax iska bedeli doonaan biidnillahi alkariim or early next week bay dhaheen hadday jimcaan noqon weydo marka I can't wait inaan arko qaabku isku bedelayo alaabada cusbeeda la soo geliyeen hadda ayaynu insha Allah isla eegaynaa iyo qaabku homepage ku noqonayo biidnillahi alkariim marka homepage-ka uu yeelanayo company-geenu marka horeba very organized buu ahaa haddana organized baa laga sii dhigay waxa weeyaan marka aad soo gashid wax shopping cart la yiraahdo baa jiri doona iyo category kala duwan baa jiri doona inta halka idinka muuqataaba hadda waa alaabteeni waxay cusbaa wali lama soo gelin laakiin waa tusaale laga soo qaatay weeyaan category-yadeena waxay u kala baxayaan marka daily deals way jirayaan waxyaalaha maalin kasta sale-ka ama qiimo dhimista lagu sameeyay ama 20% ama 30% 20 ama 30 ama 50% laga riday qiimihii ay ahaayeen way dhici doontaa taasi oo meesha kama baxayso way jirtaa way jiri doontaa new arrivals ba iman doona waxa cusub ee hadda soo kordhay tab ah oo dhufsanayso oo noqonaya baraanada cusub ee kolba soo join gareynaya in halka ay ugu tagno baraan kasta cusub kamani kasta cusub alaabtiis marka ay soo gasho in halka loogu tagi doono website-da marka in ka adeeganayno qayb new arrivals bileen dharka kale iyo kabaha marka iibsanayso lagu leeyahay waa alaabtii hadda bishan soo baxday dharkii ciidad meesha ka helaysa ama latest waxaad ka helaysaa staff baagii ugu dambeeyay baad ka helaysaa marka new arrivals-ka waxaynu ugu tagaynaa waxyaalaha cusub ee baraanada ah ee nagu soo biiri doona airport cusub haday soo biiraan qayb electronic ay soo kordhiyaan new arrivals-ka ugu tagaynaa marka halkaas waxaasi oolayaan maxaa kale oo jiri doona ayaduna top sellers baa jiri doona waxyaalaha ugu iibsiga badan haddaba way jirtaa the top sellers way jirtaa hadda dad page-kaaga gasho hadda markaan page-kayga galo anigu back office-kayga galo team-kayga wax ugu badan ay iibsadaan iyo customers-kayga wax ugu badan ay iibsadaan baa la ii soo dhigaa the top selling brands baa la ii soo dhigaa collagenka maxayga Exitrim CBD waxay ugu badnaayeen bisha la soo iibsaday intii business volume ka soo baxday baa hoosta la ii soo dhigaa markaan dashboard-kayga joogo oo team-kiyo customers-kii isugu jirta macaamiisha marka top sellers-kuna way jirayaan oo xagga hoosa lagu soo dhigaya wad arkaysaa sidii inay u shaqeyn doonto oo shakhsi loo arki doono back office-ka iyo website-ka noqonayso labada wali waxaan ku iima kala cadda iyaguna may qeexin laakiin waynu ogaanaynaa insha Allah marka top sellers way jirayaan baraano amaba ashyaa alaab mar walba ka caansan kuwa kale way jirayaan waxa kale oo ay jina magaca carabaabtay oo sheegtay waxay tiri anagu markasta waxa weeyaan goolka iyagu ama hamigayga ugu weyn in aanu haysano oonu keep garaysano waxa soconaya hadii qalinkan uu socon waayadii oo dadku ay ka baxaan ay raadaan wixii cusub caalamka jecel wax cusub baan doonana dee lacag kuma bixinayaan ma keep garaynayaan MDC way saarayaan wax cusub oo kale ayay keenayaan oo dadkii ay rabaan kana faa'iido badan imise ayaad ama koska aadi ama Walmart aadi ama Target ama somewhere oo product aad raadis lagu discontinued why loo discontinue wala joojiyay because survey markay sameeyeen ay eegeen qaabka u socday alaab iibsiga wax kasta ayaa waxa la go'aansaday bahalkan in aad loo iibsanin inuu aayalkii buuxo ayaa la arkay deena xidhi maxaynu ku bedelaa ma soconaya waxaan dadkii way ka daaleen maxaynu ku bedelaa marka saasay sheegtay baraanadeena aynu haysanay ee 10ka shayga maanta socon waa inta la soo qabto in laga saaro meesha shay cusub lagu soo bedelo because always expansion baa meesha jira ballaarin baa jirta marka taana in aynu xisaabta ku darsano weeyaan wax kasta oo soconaya oo dadku rabaan faa'iidana leh qiimo jaban ah in la keeno waxa kale oo website-ka aynu ku garan doonaa alaabadeeni alaabada kala saari doona calaamad yar oo yellow ah ayaa halka ka saaran huruud ama jaalle ah baa halka ka saaran yes taasaynu ku ogaanaynaa in ay tahay alaabtii my daily choice teamka waxa jira walaalo badan oo cusub laga yaabaa inay kala saari waayaan teebaynu leenahay teebaynaan lahayn haddii doonaan inay kala bartaan alaabadeeni si ay dadkooda ugu sharaxaan customerskooda ugu sharaxaan marka calaamada yar ee huruudda ahi way yartay halkaa hadda idinka muuqata ma arkayo ee baraanka hem saaran waxaa yar ee yelowga ah ayuu yeelan doonaa alaabadeenu halkaasaa lagu garan doonaa in ay tahay TMDC iska lahayd ee iyagu samaysteen everything else easy buu noqonaya
waxa kale oo ay jana soo saartay oo ideyadeeda ah gabadha waxaan ku jeclaaday maskaxdeeda ma sha Allah Allah siyaadiyo waxa la yiraahdaa brand directory hadda markaynu moolalka aadno haddaynu raadinayno dukaan moolka kumida oo H&M bad raadinaysaa matan loo kale you have no idea floorka uu yahay H&M waxa jira meel directory oo leeyihiin albaabka hore main floorka oo dul istaagso eegso dukaan kasta iyo meesha floorka uu ku yaalo iyo xitaa nambarada qaar leeyihiin moolasha waaweyn ee North America Mall oo Minneapolis kala dad moolka aad ku dhex lumaysaa moolka waaweyn iyo Edmonton Mall iyo ma aragtay dad aad moolasha waaweyn moolasha yar iska caadi waa inaad ogaato dukaanka floorkeedu ku yaala si aanad maanta gidisa u dhex wareegin waqti kale marka waxay soo saareen brand directory wax la yiraahdo website-ka cusub yeelanaya oo baraanada oo dhan ku jira inta halka idinka muuqataaba waa inteeni hadda Hemworks waa brandkeeni hem Daily Spraygi Mantra Body Melt Cosmetology Akashigas High Life Travel Beyond Hem Mama iyo Fuel Factor X intuba tobankeeni brand tobanka halka idinka muuqda marka aad ku sii dhufsato marka mid kasta video yar buu leeyahay daawanayso wuxuu leeyahay markaad sii dhex gasho meel yar oo alaabtii oo dhan ku soo saaraysa documentationadii oo dhan very organized baa laga dhigay inaanu qofkii wareegaysaninba hadda wayn leenahay oo brands meel ay dhaaba jirta oo ku dhufsanayso oo linkiga ah oo ku geynaysa way sii balaadhiyeen maadaama wixii sii badanayso wala sii balaadhiyay brand directory-gaas la soo saaray si wixii loo arko in maaragtay brand kasta waxa hoos yaala uu yahay wixii brandkaasi lahaa marka every brand saasay noqonaysaa insha Allah diil ha qadaro wax alla iyo maaragtay wixii aad u baahan tahay dhankaas aad keenaysa collection kooda dhan meesha ka soo baxaya okay waxa jiri doona marka wax la yiraahdo brand partner program baa jiri doona isaguna dadka ama brandada soo join gareyn doona MDC ka soo mid noqon doona ayaga laftigoodu website-ka ay automatically inta u yimaadaan iska diiwaan gelin karaan dadka Amazon ku iibiya Amazon markay doonayaan ku iibiyaan account bay ka furtaan soo ma sidoo kale Amazon customers kun account bay ka furtaan MDC wuxuu u fududeeyay wixii technology-ga fududeynaysa in ay inta website-ka galaan ay dhahdaan start selling with my daily choice sida Amazon oo kale marka Amazon doonayo qof inuu ku iibsado wax uu Amazon account oo business account u furto oo uu lacag u bixiyo deedna marka application-kiiba halka ka dirsanaya inagu affiliate bayna already waan ka tirsana ma hayno sellers noqono nooma furna laakiin waxa weeyaan in loo fududeeyay oo hadii uu brand jiro matan loo kale soo join gareynaya intii uu Las Vegas iyo isku wareeriyo telefoon iyo waxa raadin lahaa application-kiisa online ku dirsado because laga yaabaa brandkaasi wuxuu ku yaala Asia somewhere ayuu ku yaala marka iyagu maxay sameynayaan review bay ku sameynayaan way akhrinayaan way eegayaan waxay product-giba ogaanayaan haday sample bay kulli dalbanayaan way tijaabinayaan wixii markay ka mid dhaliyaan ay deetan u soo bandhigayaan dadka marka announcement buu sameynaya insha Allah kamanigeena cisho dhow bishan aynu ku guda jirno press release bay soo saarayaan baraanada soo join gareeyay so far todobada la soo gelin doono insha Allah shay ama product ee la soo gelin doono website-ka ka mid noqon doona konton ilaa 100 baa ku soo jiray pipeline-ka viewga inoogu jira parking halkan ay noo fadhiyay muudid marka halka in laga soo qaado oo la soo galiyo website-ka maalinba qayb lagu soo daro waa wax qorsheysan lana soo daayo press release ama news-ka la soo galiyo la ogeysiyo caalamka MDC in ay furtay marketplace ay furtay una furtay baraanada kale ee aan awoodin resource-ka aan haysanin ama technology-ga aan haysan ama dadkii aan haysan shaqada qabanayay waxyaalo MDC u fudud waxa weeyaan technology bay haystaan the best technology bay haystaan MLM industry markaad eegtid ninka haysta waa nin yar oo fircoon labadoodu ma kala dhacaan midna wali 40 labadoo qof mid gaadhin waxa ku jira almost dhowr iyo 30 weeyaan labadooduba yani waxay la jaan qaadeen dadku markay yar yihiin waxay la jaan qaadaan generation-ka ma aragtay ku jira lagu jiray la jaan qaadaan waxay u fududeeyeen dadka marka in technology-gi uga dhigaan wax easy maadaama easy noqotay deedna ay casriyeeyaan kolba intii aan ku jiray wax badan baa website-ka lagu soo kordhiyay oo aniga laftigayga markaan eega aanan wali xitaa isticmaalin subhanallah so many things bay soo kordhinayaan si wixii u fududaadaan Apple muxuu sameeyaa oo adduunka aan kaga yahay Samsung iyo Nokia iyo LG telefoonada suuqa kaga saaray because sophisticated technology bay haystaan wax aan laga daba hadli karin oo technology inta iOS-kooda way update gareynayaan software update maxay update markaasa lagu jecel yahay adduunka markaasa waxay noqotay wixii ma aragtay in maalin kasta iPhone ka soo baxay iga daba geey lagu yaaco dadkii ku ordaan
marka sidoo kale MBC technology bay haystaan resource-kii bay hayaan maskaxdii bay hayaan intiiba isla kaashteen taasa u fududeysay maanta inay noqdaan company MLM ah oo marketplace u fura dadka Amazon wuxuu iibiyaa sanadkii wax lacag gaaraysa 500 bilyan oo alaab uu iibiyaa network marketing oo dhan hadii la isku geeyo waxay iibiyaan 200 bilyan ay iibiyaan oo alaaba MLM-ka marka la isku geeyo industry-ga network marketing industry-ga oo naqaano MDC waxay tiri maxaa noo diiday in aynu Amazon la tartano in halkaa gallo maxaynu kaga fiicnaanaynaa Amazon ba haddaba isweydiin mudan maxaynu haysanaa wax aanay Amazon haysanin oo la yiraahdo relationships xiriirkii dadka ayaynu haysanaa marka company aad ka tirsan tahay ee team ka tirsan tahay ee teamkii hebel iyo heblaal isku yaqaano ee meel marka wax lagu sameeyo la isugu tagaayo ama Zoom kala soo galo kamarada la iska arkayo maxaa la yiraahdaa family oo kale baa leeyahay relationship ba meeshii yaala Amazon affiliate ka u shaqeeyo ma yaqaanaan they have no idea affiliate program bileen Amazon oo alaabta xayisiye iibiya ayagu baraana u gaar bileen Amazon la Amazon basics iyo Amazon essentials xala noocaas ay leeyihiin albaabadana waxa u furan dadkii kale anoo had bariban Amazon ku iibin jiro oo ahaa business Amazon bilaabay intaan MLM ka soo galin 2017 multi vitamin ban samaysteen iibin jiro badan waan wadi karo it was hard inaan anigu one person one man one mission bay ugu noqotay ma ogtahay wax ii shaqeeyna muu jirin keligii baan ahaa marka baraanki waan fasaxay lacagtii iga gashay marka iga soo noqotay halkii baan ku joojiyay farahan ka qaaday marka dad baan raadiyay iibiyo like affiliate oo kale aan raadiyay way ii suurtageliyay because company ma shakhsi baan individual baan xitaa business partner ma lahayn sis maxaa lahaa gabadh assistant oo Facebook iga caawiso waxyaala post gareeyay waxa so anyway long story short and muhiimadu waxa weeyaan in aynu fahano waxaynu haysanaa in uu yahay wax 100,000 oo jeer Amazon ka fiican complan it's unmatched markeedii hore unmatched aha suuqa compensation plan loo beegaray 8 different ways sidee dariiqo oo kala duwan dadka oo midba mid aan ka dhicin compensation plan binary iyo unilevel urursaday oo koobsaday oo labadii meel isugu keenay compensation plan very qaniya wili team kamida waxa laga hayo wax faxal company-gani ma ogtahay qaabka wuxuu bixinaya marka complan-kii relationship-kii training everything baan haysnaa oo aan Amazon haysanin marka inuu diiday inay soo sameeyno way noo furan tahay dadaala xaaji cabaas uu gaaraa taa ayna xusuusnaana insha Allah qof kasta oo dadaala in uu ka midho dhalinayo hamiga uu leeyahay company-geena meel bay ka soo bilaabeen 3 shay bay ka soo bilaabeen maantana halkaas marayaan maxaa inaga horjoogo ashqaasa zoomkeena inta halka maanta ku jirta teamkeena idinaga ma hortaagna heerkaas inuu ka gaari karnaa company-geena aynu noqono dadka sanadkii millions ka sameeya hadii ilaahay nafta inoo daayay inoo qadaro biidnillahi kariim ilaahayna inoo qadaro biidnillahi kariim okay intaasaan ku soo ururinaya presentation-keeni maanta inta aanan share-ka joojin iyo recording-ta waxaan wax yar tusaalayaasha bixinaya alaabadii ay share gareeyeen Josh Channel oo 5 kamid ah 6 bay sheegeen oo soo gali doona website-ka insha Allah weegan usbuucan soo socda waxyaalaha qaar kamid ah waxay idareensiyeen subhanallah wixii ay ka hadlaysay Channel inuu run ahaa genuine ay dadkan yihiin maaragtay laabta u fureen marketplace-ka oo yiraahdeen iigadayadii halkaas aan kaga tagnay anagu isla weynaantii maya anagu sideed alaab 10 brand baan haysanaa maxaan ku faleynaa wax kale waan ka daragnay waxa way ka yimaadeen waxay sheekad maraysa had ma laga tagay warka alaabada ay u fureen suuqa waxa kamida mid makeup spray-ga marka qofku marsado hablaha dumarku garanay lagu sarab gareeyaa jira brand cosmetology-ga ayaan leenahay wax spray baa la socda skin care-ka loogu tala galay in aad ku sarab gareysatid finish kaga dhigtid makeup-ka Jana waxay tiri it's okay we are ready for challenge by tiri maogtay competition-ka iyo tartanka kama cabsanayno welcome albaabada loo furay coffee ayaa jiray isaguna weightless coffee maynu lahayn laakiin MDC waxay lahaayeen coffee ham ku jirto la cabi jiray oo natural caffeine ah coffee oo weightless ah ayaa ku jira albaabadaasina loo furay waxa kaloo ku jira detox tea ayaa jira oo cabaysid detox wayna haysanaa laba nooc waliba aynu haysanay brandkeena sprayada detox baa ku jira isa la dhaho I wish in I idin tusi lahaa hadda camera saad uga aragtaan halkan qaanadan ka barteen waxay ku jiraan madbaxayga waxa kale aan haysanaa
detoxkii caadiga ahay capsulkii brandka kale la socda ee body melt asaguna kaasna waynu haysanaa labadaba waynu haysanaa qofka body melt isticmaalay detox baa la socda spray isticmaalay detox baa la socda haddana detoxtiga waxay leedahay welcome albaabkan ku furan no discrimination meesha ma jirto ka service farahay ka qaadeen way soo daayeen cooling cream baa la socda skin care keena eye cream la socda waxay leedahay welcome dadku in ay waxay leedahay sababta aan albaabada ugu furnay waxay leedahay dadka aad u jecel markoodii hore ahayn very popular waxay ka sheekaysan jana especially spray waxay tiri waxa weeyaan quality-giisu waxa weeyaan the top waxa isticmaala dadka celebrity-yada ay caankaaba isticmaala waxa loogu talagalay in uu wajigaagii makeup-kaaga maanta dhan hayo subhanallah waa very nice ayada ammaanaysi mana laha iyadu may samaysanin Soomaali waxa tiri bidana gartiisa naq qofka wax wanaagsan haysta waa loo amaana bakhaasi lama noqdo ma ogta markaa waxay ina tusinaysaa taasi inoo cadaynaysaa in ayagoo alaabadii ay taalo aynu iibin karno haddana qaar kale tusaale Amazon ay bixinayeen waxa kamid ahaa jeaniska ay bixinayeen hadda jeans raadinaysa tir maanta 100 jeans kala nooca ku soo baxay waa runtii haddoontaad iibsanaysa qofka ornay kan gado ma jirto H&M jeaniskiisa gado ma jirto gaab gado ma jirto adaa waxaad rabtid iibsanay waa saas oo kale in qofkii choice ikhtiyaar la siiyo ay diyaar u yihiin marka taa ayay faa'iido inagana inoogu jirtaa qofka maanta ku dhado cosmetology sprayga ma rabo ee kana raba de welcome baad leedahay walaal iibso maxaa maana ka hor joogo waban ku haynaaye wax kastaan ku ogal lahaye marka taas inaynu xusuusnaano halka inoogu jirto markasta maskaxda ayaa muhiim ah oo aynaan kala saarin oo wixii uu Josh iyo Jana CEO-yadeen inooga digayn scarcity mentality aynu ka tagno oo indhahno albaabada way furayeen cid kasta u furayeen intaasaan kusoo koobaya barnaamijkeenan maanta insha Allah marketplace MDC marketplace ahaa aynu ku wadaajinaynay waxyaalaha soo kordhi doona haddii ilaahay qadaro weekan aynu ku jirnay maanta dhamaanaya maanta haddii caawa la soo gelin waayo 12 Pacific Standard Time marka xafiiskeena u tahay insha Allah waxa la soo gelin doonaa Monday or Tuesday or Wednesday sometime next week insha Allah usbuuc inagu soo food leh haddii ilaahay qadaro inta wax su'aalo oo tiimku ka qabaa ma jirta waa barnaamij nagu wada cusub haddii aan jawaabta heli waayo waan inoo raadinayaa haddii aan hayo insha Allahna waan idinka jawaabaya biidnillah alkariim يا wax su'aal inta teamka ka qaba doonaya maaragtay wixii midmadow kaga jiraan inaynu u kala saarno insha Allah inta aan ka fahmay idan kan idin furaya hadda biidnillah alkariim marka wax su'aala teamka recording-tana waan iska deynaya iska socoto si walaalaha kale ee maaragtay daawanaya hadhowto looga faa'iida codkayga horta waa la maqlayay soo ma si wacan qof baa mayga soo furtay xalwaciisa laakiin waxba kaama maqlo ma ogi inaad hadlaysid in kale ها هدان ku maqlaya hadda anaga adiga la kusugaa anaga Soomaaliya dawladda aan kusugeynaa afkaada sugeynaa insha Allah waxaan soo fiirsado kulli wax ma dalban karnaa maleynaa anaga barnaamijkeeni ha ku jirnay xalwa insha Allah la ogeyn reer Soomaaliya hadii ilaha qadar in aynu kamaniga waa inaga la hadalay follow up ku sameeynay in alaabada xilliga la geynayo goorta sida loo geynayo waxaas dhan ay noo sheegaan barnaamijka ha wali waxaan way lisbeen ugu jirnaa si markaad u eegtid Allah inoo soo fududeeyo insha Allah su'aal kale ma qabaan ma sha Allah ya xabibti insha Allah jazakallahu khairan cid kale oo wax su'aal ku taaganta insha Allah ma jirtaa mise خلاص wala wada fahmay kulliba siday wax u soo kordhaan baan kolba maaragtay u wadaajinaynaa wax kasta cusub oo soo biira wada wadaajinaynaa maadaama barnaamij cusub yahay marketplace-ku oo hadda uu soo baxay waxyaalo badan baa soo galaya cusub meesha markaa waynu wadaajinaynaa raxmaan arkiyo cod mayga furatay ku soco raxma ما يعني وحمل هيني ما شاء الله تبارك الله سود وهذا عندي كلام ورفري هي ما شاء الله ما شاء الله محمد عندها يدها ويكبر الجنان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قفنا ما يجيك مرد الجناء لكن
ما شاء الله ما يدي مالها إن شاء الله وحي ما عرفتي أي نفهم ويننا ده تيم بينو شوقة ما عرفت ديار هبي مع الله إنه سألها كهر قفينه ويديني نقول بعدين هنقدر أنت أنا أبديت كوالا صوري جاية ميل والبا MDC page كو تليجرام كا فيسبوك wax kasta oo soo kordha saasa loo soo share gareeyaa intaan xitaa kulan la samaynin baa lasoo dhigaa sometimes kadib baa kulan English la sameeyaa didna qolo kasta luqadooda ku turjuntaan moogtaa marka maasha Allah tabaarakallah okay waan joojinayaa recording-ta haddii Ilaahay qadaro waxaan inoo soo gelinayaa bahalka YouTube-ka and then waan soo share gareyn doonaa team kala soo wadaagi